waa qiso cajiib ah oo ku dhacday nin u dhashay dalka Faransiiska oo dhawaan diinta Islaamka qaatay. Ninkan waxa uu faray qof walba oo Islaam ah oo diinta Islaamka haysta in qisadiisa uu sii sheergareeyo qofka kale oo walaalkiisa uu gaarsiiyo maalinka yawmul qiyaamana uu kala xisaabtami doono. Nin dhawaan qaatay diinta Islaamka isaga iyo familkiisa ayaa idaacad local ah oo ku taala dalka Faransiiska waxa ay weydiisay sababtii ka dambeysay inuu diinta Islaamka qaato. waxa uu yiri sanadku markuu ahaa 1993 ayaa ani iyo xaaskayga waxaan dalxiis u tagnay dalka Turkiga. meel tuula ah ayaa nimid kolkaas ayaa nin odaya ku niri adeer hotel halkan ma laga helayaa mise ka dhow yahay. ninkii odayga ahaa waxa uu nagu yiri halkan hotel kama dhawaa waana habeen madow gurigeygii iska seexda caawa berina safarkiina sii wata. waxaan isku raacnay xagga iyo gurigiisii. markii aan xaafadii nimidna waxaan aragnay qol mugdi ah oo 5 caruur ah ay joogto iyo 2 qofood oo waayeela. odaygii waxa uu ii keenay aniga xaaskayga casho fudud waan cunay runtii cashadii. waxa uu nagu yiri halkaas seexda adiga xaaskaaga aniga iyo reerkaygana waxaan seexanaynaa qol kale oo xaafadu ku leedahay. waagii markuu uu dilaacay ayaan isiri odayga u mahad celi kana sii tag mise qolkii waaba cidna kuma jirto. banaanka ayaan u baxay runtii anigoo aad iyo aad u yaaban. ayuu yiri mise waaba reerkii iyo ehelkii iyo qoyskii oo geed hoostiis ag seexday qabow daranna uu saa'id u dhacayo. xaaskaygii xaaladda markii ay aragtay ay aad u ooyday oo hin ay qabsatay. markaan xaaskaygii ay aad iyo aad u ooyday ayaan waxaan ku iri wakaa dhaqanka Islaamka dhabta ah ee maaha kuwa dhaqanka reer galbeedku ay buunbuuniyaan. odaygii ayaan u tagay waxaana weydiiyay sidee diinta Islaamka ku bartaa. odaygii waxa uu ii dhiibay kitaab Quraanka Kariimka ah oo ay luqadda Ingiriiska ku turjuman yihiin. 2 bilood ayaan baranayay waana ku qancay. ugu dambeeyna waxaan ku dhawaaqay kelmadda furaha oo ah diinta Islaamka shahadatu an la ilaaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasuulullah. anigii waan islaamay anigii qoyskaygaba waxaan sidoo kale aan ballan qaaday inaan diinta Islaamka sii faafin doono ilaa inta aan ka dhimanayo. hadda waxaan gacanteeda ku soo islaamiyay 1,000 qof wax ka badan. wiilkaygii oo aan dhalay waqtigaas waxa uu dalka Roomaaniya ku leeyahay xarunta ugu weyn daraasadda Islaamka ah. halkii marna waxa ku soo muslimo 1,000 qof oo cadaafaha caalamka ka yimaaday. waad aragtaan walaalayaal wadada ugu fudud ee lagu faafin karo diinteena waa dhaqanka wanaagsan. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaamna wuxuuna farayay dhaqanka wanaagsan iyo soo dhaweynta dadka martida ah. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaana faray taas. nabiguna wuxuu ahaa mid dulqaad badan dhaqan wanaagsan soona dhaweyn jiray jecelna martida. walaal qaali waxaan ka codsanayaa muuqaalkan marka koowaad inaad sii sheer gareyso. qisadan waxa soo dirsaday ninkaas Faransiiska ah ee dhawaan diinta Islaamka qaatay. qof walba oo Islaam ah buu oo muuqaalkay sii sheer gareeya ilaahay waxaan ku baryaa awlaad waasica uu siiyo kaan sii sheer gareena maalinta yawmul qiyaama aan kula xisaabtami doonaa. walaal sii sheer garee muuqaalkan siina faafi gaarsii walaalka kale ee muslimka ah.